gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Ibraahin Aadan Qabo ayaa maanta shir jaraa'id oo ku qabtay xarunta maamulka gobolka Togdheer ku magacaabay guddiga qabanqaabada 18 May ee nagu soo aadan waxaana kamid ah adaladiisii waxaanu halkan isugu nimi maanta inaynu ku dhawaaqno guddigii qabanqaabada 18 May oo ay ka harsan tahay muddo bil iyo maalmo ah siday caadadu inoo ahaan jirtay waa maalin inagu dheer oo ummadda Soomaaliland iyo shacabka Soomaaliland ba ku dheer waxaan magacaabayaa guddi qabanqaabo oo ka kooban 12 xubnood oo gobolka Togdheer ah guddidaa waxaa madax u noqon doona gudoomiyaha degmada Burco Maayer Maxamed Cabdiraxmaan Yuusuf waxaa gudoomiye ku-xigeen ka noqon doona gudoomiye ku-xigeenka gobolka Maxamed Diryaxay waxaa xogeyn u noqon doona Cabdi Maxamed Ciise oo xogeeyaha gobolka waxaa kabi doona oo iyaguna ku jira guddida aan magacaabi doono maarayaha wakaalada biyaha ee gobolka degmada Burco waxaa ku jira isduwayaasha maaliyadda waxbarashada iyo anagoo jandarka ilaalinayna dhinacii haweenka isduwaha agaasimaha gobolada bari Saara Xuseen iyo gudoomiyaha ururka Naaw Deeqa Weydaar waxaa iyaguna ku jira NGO-yada oo ay kamid tahay UNITA ayaa kamid ah waxaa ku jirta guddida oo kamid ah iyaguna guddida ganacsatada waxaanu doonaynaa guddida aan ku dhawaaqnay maanta inay u diyaar garoobaan qabanqaabada iyo dardargelinta hawsha 18 May sanadkan waxaanu doonaynaa sanad ka yara duwan sidii 18 Maydii hore waxaanu qaban doonaa xafladda maalintii iyo habeenkii oo iyadana barnaamij live aan u sameyn doono si ay qurba joog noogala soo qayb galaan oo aan ku qaban doono xarunta madaxtooyada oo aan u diyaarin doono taariikhdii iyo wixii jaranjarooyinkii uu soo maray 18 May goonisutaageed gobolka Togdheer iyo degmada Burco maadaama ay tahay meeshii lagaga dhawaaqay goonisutaaga Somaliland waxaanu doonaynaa 18 Mayda kale mid ka duwan inaanu sanadkan sameeyno